Tan iyo markii ay soo baxday cabashada ku saabsan ciidanka iyo gadoodka ka taagan jidda hore ee Tukaraq, ayaa wasiirka gaashaandhigga Jamhuuriyadda Somalilan iyo taliyaha militariga Somalilan waa Nuux Taani waxa ay safar ku gala bixiyeen gobolada Sanaag iyo Sool, iyagoo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa jidda hore ee gobolka Sool qaasatan degmada Tukaraq, halkaasoo ay ciidanka xog wareysi kula yeesheen. Wararka ayaa sheegaya inay u tageen xalinta iyo khilaafaadka ciidamada Jamhuuriyadda Somalilan ee ku sugnaa jidda hore si ay u xaliyaan. Xukuumadda ayaa tan iyo weli aan ka hadal dhibaatada ka taagan jidda hore ee gobolada Sanaag iyo Sool. Wax wara ayaa xogagal ah oo laga hayaa ma jirto xukuumadda Jamhuuriyadda Somalilan ee garwadeenka ka yahay Mudane Muuse Biixi Cabdi. Tan iyo markii ay cabashadani soo baxday ayaa bulshada Jamhuuriyadda Somalilan ku dhaqan baraha bulshada si xawliya looga dareemay inay kaga hadlayeen, iyagoo halkaa kaga falcelinaya odhahyo kala duwan. Haddaba taliyaha Jamhuuriyadda Somalilan waa Nuux Taani ayaa waxa dhawaan la filayaa waqti uu ka hadli doono xaaladda gobolada Sool iyo Sanaag ee ciidanka Jamhuuriyadda